أرضي قلت واسدي ليس واسدار أرتيو أكتوى بركي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد مادة بيولوجيga fasalka form 4 waxaan ku guda jirnay cutubkeeni koobaad nervous system and sense organs. waxaan soo gaarnay casharkii sagaalaad. casharkan sagaalaad waxaan ku baran doonaa insha Allah peripheral nervous system. peripheral nervous system ka waxa waaye habdhiska dareenwadaha ee ku jiro hareeraha jirka. waaye marka aan soo kala qaybinay nervous system ka habdhiska dareenwadka laba qaybood oo soo kala qaybinay. qaybtii koowaad waxay ahayd central nervous system, qaybta labaad waxa waaye peripheral nervous system. central nervous system ka waa habdhiska dareenwadka dhexe maskaxdii spinal cord ka ahaayeen. hadda kan hareeraha jirka ku jiro ayaan ku baranaynaa marka peripheral nervous system ka. arday casharka marka aad dhameeno waxaad awood u yeelan doontaan in aad sharaxdaan qaybaha uu kala qaybsamo peripheral nervous system ka. sidoo kale waxaad awood u yeelan doontaan mid walbo qaybaha uu kala qaybsamo peripheral nervous system ka shaqadiisa in aad sheegtaan. sidoo kale waxaad awood u yeelan doontaan in aad kala sharaxdaan parasympathetic iyo sympathetic waxyaabaha laga wado. marka gudaha u galna casharkeena arday nervous system ka guud ahaan nervous system ka waxa u soo kala qaybinay qaybtii ay central nervous system ka oo u kala bixaysay brain iyo spinal cord. marka qaybtan peripheral nervous system ka labadan qaybood ayaa loo kala qaybiyaa cranial nerves iyo spinal nerves. marka waxaan ka bilaabaynaa qaybta cranial nerves ka. neerbayaashan cranialka waxay ka soo faracmaan oo ay ka soo daadagaan maskaxda ayay ka soo daadagaan. waxay neerba siiyaan marka dareenka oo waxay qaabilsan yihiin head and face. marka cranialka waxay ka shaqeeyaan dareenka sida sawirka kaaga muuqato. dareenkay ka shaqeeyaan meelaha wejiga iyo madaxa guud ahaan dareenkaas ayay ka shaqeeyaan. waxayna ka tirsan yihiin peripheralka. waa 12 xabo, waa 12 cranial nerves in human. ibni aadamka markii la joogo 12 qaybood waaye, 12 oo laba u socoto waa beer laba ah. marka cranial nerves ka waxayna shaqadooda ay ku go'an tahay kaliya ay ku xadidan tahay head and face, wejiga iyo madaxa. murqayii wejiga ku jira iyo madaxa stimulationadaas iyo dareemahaas ayay ka shaqeeyaan. qaybtaas marka waxaa loo yaqaanaa cranial nerves. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa spinal nerves. qaybta labaad ee peripheral nerves ka waxaa loo yaqaanaa spinal nerves. spinal nerves ka waxay ku jiraan marka hadda fiiri waa kuwaan hareeraha jirka ku jiraan. waa kuwaan dhan waaye maxaa la lahaa neerbayaashaas ka muuqdo hareeraha jirka iyo adimaha kuwaasa waxaa la lahaa peripheral nerves. peripheral nerves ka peripheral qaybta spinal ka waa marka kuwaan waxaa loo yaqaanaa peripheral ka ee ka mid yihiin waa spinal nerves. neerbayaashan marka waxay ka faracmaan iyagana spinal cord, halka kuwii hore ka soo faracmayeen brain. kuwaan waxay ka faracmayaan spinal cord ka ay ka faracmayaan. waxayna neerba siiyaan oo ay qaabilsan yihiin dareenka adimaha limbiska, adimaha iyo trunkiga. waxa waaye qaybtan jirka waxa waa qaybta godka ah. qaybtaas ayaa waxaa la trunk. qaybta dhexe ee jirka, godka dhexe ee jirka ayay siiyaan. iyagana waxay ka kooban yihiin 32 oo laba ah ay ka samaysan yihiin jirka ibni aadamka markii la fiiriyo. marka qaybtaas waxay ahayd marka qayb peripheralka. qaybta labaad peripheral nervous system ka markii laga hadlaayo dhammaan neuronada oo peripheral nervous system ka ka tirsan waa kuwa laga helo marka waa dhammaan peripheral nervous system marka hadeen waxay ka dhigan tahay dhammaan neuronada laga helo
jirka marka laga reebo kuwa laga helo central nervous systemka kuwa maskaxda iyo xangulaha wixiiba laga soo reebo oo neuron ah oo dareen wada ah waxay noqonayaan peripheral nervous system peripheral nervous ay noqonayaan marka waxa ka mid ah marka dhammaan wixiiba sensor neuron ah aanan ku jirin marka centralka iyo motorka kuwaas waxay noqonayaan marka peripheral nervous system waaye marka laga hadlayo marka motorka iyo sensoriga hore usoo baranay sensoriga wuxuu macluumaad ka qaadayay sense organs wuxuuna geenayay central nervous system halka motorka uu amarada ka soo qaadayay central nervous system uuna geenayay effector organ ama muruqii iyo qanjirkii muruqyada jir ku jiray iyo meelihii laga rabay in amarada laga fuliyo marka motorka markii la joogo peripheral nervous systemka motorka waxaa loo sii kala qaybinaa qayb hoosaadi ayaa loo sii kala qaybinaa motor neuronska markii la joogo peripheral nervous systemka wuxuu sii kala qaybsamayaa laba qaybood qayb loo yaqaano somatic nerve system iyo qayb loo yaqaano autonomic nervous system automatic maaha autonomic nervous system marka mid u arkeenaa the somatic nervous systemka muxuu qabtaa asaga somatic nervous system maxay yihiin waa kuwa nervous systemka ku jira tusaale ahaan xubnaha qofka uu asaga xukumi karo qaab voluntary ahaan uu xukumi karo gacantaadoo kale ama murqihii dul saarna skeletalka marka aad laabayso kale kuwaasoo kale waxaa leeyahay dareemayaasha ama motorka ku jiro neuronska motorka kuwaas amra waxaa loo yaqaanaa somatic nervous system marka ka hadlayno somatic nervous systemka waxaa dhacaysa marka nerves ku jiro somatic nervous systemka waxay sameynayaan macluumaadka iyo waxay u kala gudbinayaan information macluumaadka iyo waxay ka qaadayaan sensory receptors walxaha dareemayaasha ee ku jiro sensory organska ay waxay ka qaadayaan macluumaadkii marka intay geenayaan central nervous system xarumihii dhexe ee spinal cordka iyo brainka ayaa la geenayaa kadib kuwaas amaradii ay soo bixiyeen waxaa soo qaadayo motor nerveska ayaa soo qaadayo waxayna keenayaan marka intay keenayaan waxay ka soo qaadayaan macluumaadka central nervous system waxayna keenayaan skeletal muscle marka waa nerveska macluumaadka u kala gudbiyo xubnaha voluntary-ga ah inta badan voluntary-ga ayay shaqadaas u qabtaan voluntary-ga marka maxaa waaye macluumaadka ay ka qaadayaan amaradana way ku soo celiyaan marka kuwa voluntary-gana waxaa dhaana waa qofka ogaalkiisa kuwa uu ku maamuli karo marka waxaa lagu dhahay meeshaan exceptiona jiro dhammaan waxa uu qabto ma wada ahaan halahay dhammaan dareemayaasha uu qabto ma wada ahaan voluntary alla qaar waxaa ku jiri kara involuntary tusaale ahaan kuwa ka dhaco gudaha jirka marka sidoo kale waxaa jiro qaarkood uu sameynayo somatica mararka qaar wuxuu sameeyaa reflex jawaab naq ayuu sameeyaa falnaq ayuu sameeyaa falnaqaasoo ka dhashay marka falnaq degdeg ah oo lagu sameynayo isbedel ka dhashay environmentiga ama deegaanka noolihii uu ku noolaa ama ibni aadamkii deegaanka uu ku noolaa isbedel ka dhacay awgeed in uu falnaq degdeg ah u sameeyo ayaa laga yaabaa marka somatiga marka guud ahaan markaan soo duuduubno somatic nervous systemka wuxuu ka shaqeeyaa xubnaha voluntary-ga ayuu dareenkii ka qaadaa wuxuu geeyaa centralka kadib amaradii ayaa motorka ka soo celiyo waxaana la keenaa wuxuuna keenaa kuwa effector organiska marka wuxuu ka qaadaa receptorska sensory receptorska ayuu ka qaadaa macluumaadkii kadibna waxaa lagu soo celiyaa effector organiska oo voluntary-ga ah mararka qaar oo xaalado yar ayaa waxaa dhacda marka qaab reflex ah in uu ku shaqeeyo waxaa u gudbaynaa qaybta loo yaqaano autonomic nervous system midkii hore ayuu kasoo horjeedaa micnaheedu waxa waaye kan wuxuu ka shaqeeyaa involuntary waaye qeybaha jirka qofka
go-aankiisa aanan ku shaqaynin ama ogaalkiisa aanan ku shaqaynin qeybahaas ayuu uu ka shaqeeyaa marka maxaa marka muxuu yahay systemkan wuxuu qaadaa cariyaasha dareen ayuu wuxuu ka qaadaa ayuu wuxuu u kala gudbiyaa marka central nervous systemka iyo internal organs xubnaha gudaha jirka ku jira ayuu macluumaadka u kala qaadaa sida wadnaha kale waa voluntary involuntary waa xubin involuntary ah oo asaga ismaamulo wadnaha kale waxaa loo yaqaanaa myogenic waa garaaciisa iyo dhaqaaqiisa asaga ayaa iswada marka xubinkan oo kale dareemayaasha quseeyo ayaa waxaa loo yaqaanaa autonomic nervous system kuwa marka waa involuntary-ga xubnaha involuntary-ga ee jirka ku jiro neerbaha kuwa sameeya involuntary marka la sheego marka the body responds involuntary jirka ayay kuwan qaybta involuntary-ga ah ayay ka jawaab celiyaan oo respond ay ka sameeyaan dareenkooda ay qabtaan maxaa laga wadaa marka involuntary not under conscious control qofka ogaalkiisa kuma shaqeeyaan ama rabitaankiisa wadnaaga adiga ma joojin kartid macnaha rabitaankaaga kuma shaqeeyo waxaa jirta marka qaybtan autonomic nervous systemka laba qaybood oo loo kala qaado marka labada qaybood loo kala qaybiyo waxay tahay sympathetic nervous system iyo parasympathetic nervous system waa kala qaybin lagu saleeyay xaaladda uu jirka ku jiro sympathetic marka maxay tahay parasympatheticana maxay tahay aan aragno sympathetic nervous systemka waxaa laga wadaa marka jirka uu ku jiro xaalad active ah uu jirka aad u shaqeynayo oo ah xaaladda emergency-ga xaalad degdeg ah marka uu ku jiro jirka ama uu stress uu dareemayo ama cabsi oo kale tusaale ahaan cabsi zaa'id ah markuu dareemayo kale xaaladaas oo kale waxay noqonaysaa sympathetic lahaa xaaladaas oo kale garaaca wadnaha oo kale iyo neefsiga way ziyaadayaan xaaladaas oo kale marka qofka marka uu dareemayo xaalad degdeg ah ama cabsi ha noqoto ama markii ama qof wax ka dhumo kale waxyaabahaas oo kale dhan marka uu wax dareemayo dareenka caadiga aanan ahayn xilliga uu nasanayo dareenka uu dareemayo dareen aan markuu dareemayo waxaa loo yaqaanaa sympathetic nervous system waa dareen dhasha marka xaaladaha emergency-ga jirkana markaas sida uu u shaqeynaya si ka badan oo ayuu u shaqeynaa oo active ayuu noqonaa parasympatheticna maxaa waaye marka sympathetic uu dhaco jirka la dejiyo dejintaas ayaa waxaa noqonaya marka parasympathetic jirkii marka uu shaqeynayo waa normally oo xaalad rest ama relaxed uu yahay uu nasanayo system most active jirka qaybihiis kala duwan waa ay dhaqaaqayaan oo waa shaqo ayay ku jiraan laakiin jirka xaaladaas shaqada marka uu shaqeynayo relaxed marka the nervous systemka waa nervous systemka guud ahaan aan ka hadlaynay waxaa waaye laay active waaye xaaladda laakiin jirka muxuu ku jiraa xaalad oo ah xaalad wuxuu ku jiraa oo relaxed jirka wuu nasanaa markaas cabsi ma dareemayo qofka asagoo nasiino ku jiro waa waxa uu marka uu dareemayo xaaladaas waxaa loo yaqaanaa parasympathetic marka parasympathetic-ga wuxuu cagsi ku yahay uuna dheelitirayaa saameynta uu jirka ku yeeshay tusaale ahaan garaaci wadnaha oo kale marka uu ziyaado sympathetic xaaladaas uu ziyaado garaaci wadnihii iyo neeftuurkii ka dhashay ayuu dejinaa marka si guud markii loo dhaho marka restore body jirka ayuu xaaladiisa caadiga ah ku soo celinaa restore body to the resting state xaalad uu wuxuu ku soo celinaa marka nasiinaha ayuu ku soo celinaa wuxuu ka nasinaa marka stressful experience maxaa lahaa xaaladihii walwalkii iyo walaacii iyo xaaladihii emergency-gii uu dareemo ayuu ka soo celinaa oo wuxuu ka dhigaa mid resting ku jiro nasiino ku jiro oo degan ayuu ka dhigaa marka tusaalahan activity-gan ardayay idinka ayaa laydinka rabaa inaad qabataan oo marka aad sawirka fiirisaan waxaa isbarbar dhigaysaa oo
isbarbardhig ku sameynaysaa xaaladda sympathetiga iyo parasympathetiga ka muuqata nervous systemka jirkan meeshan lagu sifeeyey waxaa marka sameynaysaa notebookgaaga waxaa ku qoraysaa markaad isbarbardhigto wixii kuu soo baxay marka isbarbardhigayso qaybtan waxay ku tahay qaybtan dhan waxay ku matalaysaa sympathetic halka qaybta kalena ay matalayso waxay matalay parasympathetic marka tusaale ahaan hadda markaa fiirino ishoo kale marka sympathetic lagu jiro dilate ku dhacayo waa pupilka isha maxaa ku dhacayo dilate oo wuu balaarana halka parasympathetic marka lagu jirona pupilka isha muxuu sameynaa wuu isku soo urura marka xaaladaas waa xaaladii normal marka sidaas isku barbardhigaysa kadib wixii kuu soo baxo buugaaga noodka in aad ku qorto ayaa laga rabaa waayay arday waxaan soo gaarnay leeliga cashirkeena su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad kala socdaa cranial and spinal nerves maxay kala yihiin cranial and spinal nerves maxay kala yihiin kala sooc sidoo kale sympathetic iyo parasympathetic nervous system in aad kala socdo ayaa laga rabaa su-aasha labaad marka waxay ku leedahay nervous systemka markii la joogo baartigee sympathetic miya mise parasympathetic xaaladahan soo socdo midkee active ah marka sympathetic ma active ah mise parasympathetic ayaa active ah markii pupilka isha uu dilated yahay ma sympathetic ah mise parasympathetic halka bronchitis marka bronchioliska ay isku soo ururaan marka bronchioliska markay soo ururaan oo kale sympathetic miya mise parasympathetic active ah sidoo kale saliva markii dhowr mar la soo daayo qaybtee baa active ah marka sympathetic mise parasympathetic garaaca wadno oo kale heart rate-ka marka uu zaid noqdo ma sympathetic active ah mise parasympathetic intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa ardayay cashirkeeni maanta aan ku baranay peripheral nervous systemka kulanti dambe oo xiiso badan ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee